بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waa TV-ga Jamhuuriya 24 magacaygu waa Ismaaciil Saciid Cumar. waxaan maanta halkan marti noogu ah Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonke oo ah nin aad loo yaqaano. caaqilku wuxuu ku dhashay degmada Bandarbeele 1958. shaqadiisu wuxuu soo maray dowladda hore Soomaaliya ciidamada qalabka sida. wuxuu ka soo shaqeeyay wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. wuxuuna ka noqday madax qaybeed. wuxuu noqday kala ganacsade aad loo yaqaano inta dowladda Soomaaliya ku burtay. wuxuu wadana noqday ninka Puntland la aasaasay wasaaradda dowladaha hoose iyo reer miyiga. wuxuu ka noqday reer miyiga, wuxuu ka noqday la taliye iyo madax qaybeed. Dhoonke waxaan rabnaa inaan maanta ka wareysano mawduuca ku saabsan doorashadii Galeyr iyo Galeyr taariikhdiisii iyo siduu u arko inaan maanta halkan inaan sugan nimi. Dhoonke waa nin khabiir ku ah arrimaha siyaasadda iyo aqoonta saraakiisha Soomaaliya u shaqeyn jirtay iyo mataqaana wasiirada siyaasiyiinta hore. wuxuu muhiim u yahay maanta Dhoonke aan rabnaa in halkan aan ku wareysano siduu u arko doorashadii Cali Khaliif Galeyr. soo dhawaada Mr. Galeyr Mr. Dhoonke. وهذه السلامة يا أمد الصومالية ملك استجوبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرواني مع وعد وقام أو هنا. هذا أيام قلنا وحنا نقله وريد مثلا سؤال شكوى سيد وقت وين عنك نوصل Galeyr. وحفصل الله وحاسم لكم مع هرتا هل حرام لك حرام ولا شو؟ وحفصل الله وكسر الشقي والدولة دي محمد سياد بري وسارده يهايدا كلا بدلن الدولة دي أسير كذا مارنتي وبحسنا كعنتها لو في غاي وبحسنا وضع ككينيا وبعدين أمرين كذا فصل Galeyr ومن بحفصور ومن أقوياء ومن خبير وصون وقت وحياة بدن والدولة دمي ووقت الدولة بالبلد وحنقضي رئيس وسارة وحنقضي حلبان waxaan dhageystay shalay inuu misana loo doortay madaxweynaha Khaatuum. waa tii igu yaabnay taa oo soo noqonayna su'aasha labaad oo aan rabnay inaan ku weydiino Dhoonke waxay tahay sooyaalka ama taariikhdii Professor Galeyr maxaa nooga sheegi kartaa intii mataqaana adigu aad ogtahay? xogta anigu waxaan bartay Professor Galeyr isagoo ah u shaqeeyo dowladda Soomaaliya. intii ka horreysay anigu ma aqoon. wuxuuna noqday maareeye iyo wasiir. labadii ka bacdi inta anigu marka waqtiga dowladda intaasaan ogaa iyo baxsigiisii uu baxsaday waqtigii dowladda Maxamed Siyaad. aad baad u mahadsan tahay. su-aasha saddexaad aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay hadda professorku waa madaxweynihii Khaatuum ayaa shalay loo doortay. waa xildhibaan dowladda federaalka ah. waa siyaasi ama ra'iisul wasaare soo maray dhowr jeer mar soo maray la doortay. waa nin siyaasi ah loo yaqaan. maxay hadda kula tahay doorashadiisii salaxday maamulka Khaatuum hadda loo doortay maxay tahay? salaxday loo yiraahdo magaalada magaalada lagu doortay waa toban magaalo aan aqaan. waa magaalo fiican dad Soomaaliyeedna waa ku noosha. waa u tahniyeynayaa oo shakhsi ahaan intuu jeclaystay hase yeelkadeeda maanta Galeyr mutaawo ma fadhiyo. waxaan malaynayaa ninka geeska Afrika wax laga weydiiyey. waxaan ka malaynayaa in lagala tashado UN-ka iyo international oo kala tashadaan Soomaaliya si laga yeelayo. waxaan ka malaynayaa inuu noqdo ninka Soomaaliya isu keena. waxaan ka malaynayaa inuu dhexmar Soomaaliya ku yeesho dhaqaale fiican. anigu wuxuu noqday ra'iisul wasaare Soomaaliya. wuxuu ka u fariistay UN-ka inuu ka hadlo. wuxuu soo fariistay guriga cadda Mareykanka inuu ka hadlo. wuxuu soo galay siyaasadda sare ee caalamka laga yaqaan. anigu horta wadaysan ma soo xukumin gaara. haddii shalay laga doortaa gaarna ma aqbalin. sidaa daraaddeed waa waxyaalaha hadda Soomaaliya
aynu isbedelada aynu ku aragno maalin walba qof aad meel wax weyn ku taqin oo wax yar doonayo gaar saari maayo maanta Soomaaliya halaaga xawlaha ka jira kamid laakiin waxaan leeyahay maadaama waxa uu jeclaystay oo taanideen qofku wuxuu jeclaysto qaab kasta oo soo hawarko waa loo taanideen عقل دونغو واحد من ياكل جمال هدي لو دورتو مدحونيه خاتمون الا waxaan aragnay Soomaaliya waxyaabo ka dhacay siyaasiyiin Soomaaliyeed iyagoo joogan oo soo qabtay ayaa hadana meel yar raadiyaan wax dhiba miyaa ku jiro inuu noqdo madaxweyne loo doorto khaatum loo doortay Rasul Galaw tii qofku bulshada meel sababta ka qaban kara laakiin duu qofku wax ku soo dhisayo oo meel soo kicina arrin macquul laakiin hadduu dawladahan uga soo dhawaanayo waa arrin aan macquul hadduu wax soo dhisayo kor u soo qaadayo oo meel u siiraado haddana adigu gelin meeshaas kor wax ka iman maayaan waa arrin loo soo qaadan karo laakiin waxaan u aragnaa dawlad jacayl hadeer hadda waa la doortay madaxweynaha loo doortay Cali Qalif Galeer oo dadkiisa baa isku raacay وانا ارين wanaagsan ma taqaanaa u muuqataa ma taqaanaa marka loo eego nacayb laga eego maxaa kula tan leh Rasul Galeer hadda oo madaxweyne khaatumo waa xildhibaan federaal kamid ah maxaa kula tan leh ma taqaanaa shaqada uu qabanay oo tolonaysa Rasul Galeer saxdeed buu doortay وماشي عند صلاح لي Rasul Galeer dhinacan hadduu fiiriyo koonfureed waxaa kaga degan Puntland dhinaca galbeed hadduu fiiriyo waxaa ka degan Ethiopia dhinaca waqooyi hadduu fiiriyo waxaa ka degan Somaliland iyo deegaanada isaga hadda lagu doortay oo wax badan ka jiraan Rasul Galeer horta Allah uu siro xaalad badan ku dhex jiraan waxaan kula talin lahaa marka maadaama uu yahay professor maadaama uu yahay nin caalamku magac ku lahaa maadaama uu yahay nin aan waliba qaraabanahay maadaama uu yahay nin maanta xilkasa waxaan kula talin lahaa yuu arrinta dawlad jacaylka u muujiyo siduu intaasoo qaab wax uga qaban lahaa hala yimaado siyaasadeeda Puntland Somaliland Ethiopia dhinaca ku haysta iyo qaababka aan ogahay qabiil oo ku dhex jira eriyooyinka laascaano magaalada ugu joogo buuhoodle eriyooyinka isagu uu u sheeganayo ka soo jeedo tan ku dhex jira iyo tan dhinacyada ka haysataa siduu xal uga samayn lahaa baan uga fadhinaa hadda maanta waxaan kula talinayaa inuu xal nabadgeliyo isu soo dhawaanshaha dadka isdhexmara inuu ka sameeyo magaca maamulkiisana waan ugu kaawaaba ugu ducaynaa maadaama dadweynu doonaa wax kastoo dadweynu doonayana waan dembi ahayna waan loogu ducay اوكي هذا ما سنتهي دونك سؤال اللي حاد أربعنا نقول جو حيتهاي خاتمه عقدت أنا ميل متقن أو بحيث أو حساسية أو بحيث بوتلان سمعنا أو قبل في الصول أيوة في هاي حرموها عقبها لو رنكروا من الحوين قال لي ركون من كلام ما حيتها خاتمه عقدت ميل حساسية وعنتها سيدي أنا هدا عقدت ميل عنو تأسكر ما هنجي دارت ميل حساسية وحكوية waxaa qorshaheedu yahay dadka ka dagaalama ama xal haday ka waayaan waxay ku dagaalaan ku dhufo ka dhaqa ama dagaal calaaminna laakiin Galeer hawlaha uu yahay waa hawlo adag wuxuu ka bilaabi doonaa inuu Somaliland la hadlo wuxuu ka bilaabi doonaa eriyadaas waxaa sheegtay Somaliland waa sheegtaa Puntland waa sheegtaa ama Puntland ay sahay markaan maray waxaan u arkaa in area ka tirsan tahay Puntland ninka ku dhashay waqooyi galbeed markuu maray laascaano wuxuu arkaa in dalkan yahay Somaliland usagu labadii uu ku dhex jiraa deegaanada ku dhashay kala usilada waxay ka mid yihiin Puntland waxay ka mid yihiin kuwa Somaliland iyana halgan bay kula jiraan dhinacyada ka taagan inkaas wuxuu ku jiraa horta xaalada sidii soo bandhigna dawladda Soomaaliya macallin ahaan horta macallin su'aasha kuma haqo laakiin wax qabadka macallinka waxaan ku naqaan inay su'aasha ka badnayn iyo jeesta istaago
سيدا إنك سوسات من تكسر لكن معلم كيف عين سؤالك كجواب ما حدا عين ما تروح على ودي أول سؤال الأب سؤالك وجهك قال لي أنا سؤالات في إمام هاكو بقاضي خان هذا ما هو نفتي وحي مريسا أفك هذا لقالك هذا يقعنك هذا قال لي وحنا نقول قلنا قوي هذا من قعنك هذا ونا نقل هسير كذي حاول مرة كل شيء قعنك هذا ما أنت دي أنا دونا يبغى حاجة اللي دونا هلقا وحنا جينا نسكانة فنتريستا نقالها نحكيها فنتري نحكيها الرمى مش نحكيها عاد مشروع كل ده حالة بدن وحنا مرينا يا كلا نوصل بالله نوصل بنسلنا كعن كلام لكن بكوسو قبلنا دينا على الشمال لا وأنا لا تفصل وأنا رايستا وحنا لو الدنيا هاي إنها مماركتي أنا وحريات له أول تانو ويقلوين الجيركيس هسي الكلام كلايف وحو أما كذا بيدونا كذا بيحبونا في الصدة صومالية ما أنت ماشي بقدرت أما وحو قلنا قدونا ندبر كيسوك يعني في الصدة دبوا وصلنا وذا هي صاحب السياسة وحكوا حرنتها ما أنت حالة ده صوحة دكتور وقت أبغى ما سنتهاي بس أقولكم أمانة الوصف بقول حفيز كجمهورية عقل بقولكم أمانة الوصف بقول حفيز كجمهورية في جيل تنفور وأنه ما تتحرك مثلا رئيس كلية لا مثلا خصوصا بروفيسور هذا قليل على قليل كلير وما سنتهاي بس أقولكم أبغى ما سنتهاي في وقت